السلام عليكم وأنيقا إيا مركلي خدري نفتادا أصحابتا welcome back سو دوادا إن شاء الله maanta waxaan rabaa inaan ila wadaago sida adigoo gurigaada fadhiyo ugu samaysan karto laba hair mask yaashan oo kaa caawin doono inay timaha jajabka ka bixiyaan kuu dheereeyaan kuu nafaqeeyaan isku dabaridaan iyo waxyaalo kaloo cajaa'ib ah wow soo dhawaada halkan waxaan ku haystaa geedka la dhaho dacar ama loo yaqaano aloe vera geedkan dhexdiisa waxaa ku jirto waxaas asaga dhan waa gel markaan jarjarnane sidan ayuu eg yahay waa gel socdo qolofkaana faa'iido kale intuu leeyahay ha tuurina waa idin sheegi doonaa kow waxaan samaysanaynaa hadda hair maskigii koobaad geedkan bas haddaan ka hadlo waxaa ku jiro vitamin A vitamin E C and vitamin B12 ah ku jiro soo maxay tartaa waaye su-aashaada waxay taraysaa timaha markuu badan yahay baf bilaa nafaqo yahay waxaanan la daryeelin waa iska taqaaniine maxaa ahay waxay ka baabi'inayaan way isku ridayaan taas waxaa kasii maxay ahayd fiican oo kuu sameynaya haddana maqaarka oo timaha hoostiisa ku yaalo ayuu wuxuu siinayaa qoyaan wuxuu ka bixinayaa cadcadka iyo wasaqda iyo ku dhadhagan ayuu ka bixinayaa aloe veradii sidaas usoo jajaranna waa ujeedaan qolofkan haddii aad rabto aniga ma tuuro aad inaan u yaryareeyo sidaas camal aan u jarjaro saliid allaala saliida hadda madaxaada marsato ama aa haysato oo aad isticmaasho ayaad soo qaadaysaa ayada iyo waxaa isku daraysaa qolofkiioo jarjartay dabkaa saarey markay sidii basasha camal ayaa u shiilaysaa markaad u shiisho waad ka miiranay waad marsan haynaysaa laakiin hadda annaga taas kama hadlayno waxaan u samaysanaynaa hair maskigii halkan waxaan ku haysanaa aloe veradii waxaa kaloo u baahannahay moos waxaa kaloo u baahannahay avocado iyo waxaa u baahannahay hal xabo ukunta wax laisku raacay waa mar walba timaha way nafaqaysaa borotiin badan ayaa ku jiro fitamiina ayaa ku jiro iyadana way isku ridaa moosaa kuu soo helay moos wadan aanan laga helin horta maba jirabo waana iska raqiis faa'iidadiisana wuu badan yahay mooska muxuu sameeyaa maqaarkuu jilciyaa oo tinta wuxuu kaloo sameeyaa wuxuu ka ilaaliyaa timaha inay jajabaan ama jajabka kusoo socon doono abukaadaha asagana haddaan ka hadlo waxaa ku jiro fitamiino kala duwan oo asagana timaha u fiican inta wax aan haysano midba midka kale uu kasii daran yahay ayagoo timahaada nafaqaynayaan ishcalaa waayo haddii aad timo badan qabto ama timo yar qabto ama waxay ahaataba waxaa timaha qabto maskigan isku ogaaw maxaa yeelay way kuu korinayaan xataa ayagoo kuu nafaqaynayo timihii iskaa dibaridayaan haddana wuu kuu dheerdheereynayaan laakiin ani been mani sheegaya hal isbuuc laba isbuuc ee timaha kugu korayaan ma ku dhahaaya wax walba oo anfac leh waxay u baahan yihiin waqti in timaha la geliyo waaye insha allah waxaa rajaynayaa bahashaan markaad isticmaashaan been yaa laisku sheegin hal isbuucaasaan ku noqoni waxaan wax kiimika ma ahan wax oo isaga dhan marka laisku dardaro oo natural ah waaye marka wixii waqti qaatane natiijadiisa waad arki doontaan timahaada jajabka inay ka go-aan ama hadday daadan jireen way kaa istaagayaan qaabdaradii iyo fuulxumadii iyo ayaga dhan maxay niga iloobi lacalla hadda aloe veradan haysanin waxaa jirto iyadoo jeelkii oo samaysan ah wayba furmiladahay haddii aadan haysanin maxay heeto geedkii isagoo uu diiday inuu taa aloe veradana isticmaali kartaa muhiim ma ahan inaad kaas haysato hal xabo ukun ayaad soo qabanaysaa ukuntii ayaad ku darsanaysaa hadda waxaan sameynaa aloe veradii ayaan ku darayaa
waan soo shiidanaa kadibna waan idin tusaa insha allah. waa kana waan soo shiitay. waxaa laga yaabaa inaa isweydiiso saliid ma aadan ku darin. aniga saliidda ma jecli maxaa yeele asagaaba saliid iyo nafaqo iyo wax walboo socdo ah. laakiin haddii aa adiga rabto waad ku darsan kartaa. waa kaasa ayadoo soo shiitay. timaha ayaad marsanaysaa. timaha markaad marsato lafta ilaa tinta meeshay kasoo baxda iyo meeshay ku eg tahay intaas ayaad wada marinaysaa. waad ku masaajeynay, bac ayaa ku xiranaysaa. 2 saac inaa ku haysid waaye. 2 saac kadib ayaa iska dhaqaysaa. waxaan rajaynaa inaad tijaabisaan maaskigan sababtoo ah waa maaska aan aniga gacanteyda ku tijaabiyey oo aa arki natiijaday leedahay. idinkana waxaan rajayn doonaa inaad ka faa'iidaan insha allah. hadda waxaan usii guda galaynaa maaskigii labaad inaa idin tusiyo. halkan waxaan rabaa inaa idinku tuso insha allah maaskigii labaad. maaskigan labaad wuxuu ka kooban yahay caanaha fadhiyo, kofey. kofeygana waxaa u baahan tihiin kofeyga dhalaalo insha allah. iyo waxaa kaloo loo baahan yahay saliidda qumbada. intaas ayaa loo baahan yahay. waxaan cabiranayaa 3 qaando oo kofey ah. waxaan ku xijsan tahay caanaha fadhiyo iyo goorta loo yaqaano ama zabaadi ama caanaha fadhiyo. 3 qaando ayaa u baahan tahay. hadba siday timahaada ay u badan yihiin ayaad u samaysan kartaa. kow waxaan isku qasanaynaa intaan saliidda ku darin. waxaa rabaa intaan inay isku dhalaalaan. kafey iyo caano muxuu tarayaa markii laisku daro? wuxuu tarayaa horta maaskigan runtii haddaa idin sheego aniga bes ma marsado gurigeena. dad badan ayaa ila isticmaalo oo aan isla marsanaa. maaskigan haddii aad gabar aroosad tahay oo aadan rabin timahaada inaad kalar mariso ay ku ahaadaan madowgooda ama sidayba ku yihiin, maaskigan isku ogaaw. bil intuu arooskaada ka dhiman yahay ama 2 bil isku bilaabaan ku dhihi lahay. sababtoo ah tinta aad u dheereeyaa. kofeyga wuxuu kaa caawinayaa hair follicle. timaha maxay aheeto meeshay kasoo baxayaan ayuu maxay aheeto nafaqeynayaa gudihiisa. waxaa kaleentuu rabay inaan ku dhaho caanahana isagana sidoo kaleento waa nafaqo iyo faa'iido badan isku jiraan. maxaa ahaay maaskigan markaad timahaada marsato 1 saac basaad ku haynaysaa. hadda saliidii ayaa cabiranayaa 1 qaando 2 qaando. intaas ayaa u baahan tahay. ma ujeedin kofeyga siduu u dhalaalay maasha allah. ishcalaa isku noqday. maaskigan waad marsanaysaa. markaad marsato 1 saac ayaad timahaada ku haynaysaa. kadib waa iska dhaqaysaa. aniga kolley tinteyda baan u hadli karaa iyo dadka ila marsado because ayagana waan ka arkay soo ma aha natiijada. waxaan ku dhahay nalka markuu timahaada qabto wac uu dhahaya maasha allah. qof walba waxaa laga yaabaa inuu ku su-aalo ku dhaho timahaada maxaa marsatay. haddana taas muhiimaba sii ahane wuu nafaqeynaa. timahaadana very shiny ayuu ka dhigayaa. 1 saac kadibna waad iska dhaqaysaa. wuuna kuu korinayaa maasha allah. aaduu kugu dheedheereynayaa. marka ha laisku ogaado waa 3 shay oo markasta gurigaada aad ka heli karto. maalmaha jimcada sabdigii ha laga faa'iidaysto. ha laiska shaqeeyo gabdho. timahaada waqtigay u baahan yihiin. jirka waqtiguu u baahan yahay. wejigii waqti ayuu u baahan yahay. marka mobeelada meel in laiska dhigo nus saac 1 saac jirka iyo bal hala siiyo timaha. insha allah waxaa rajaynayaa inaa iga faa'iideen. please share, subscribe, like, gambaleelka taawo si video kasta markaan soo geliyo oo hore kugu soo dhacayo. khayr ayaan idin rajaynayaa insha allah videogeena dambe hadduu ilaahay yiraahdo. aad ayaad u mahadsantihiin.